ان يونس وحاجرا ماركتي ان urur maalin dhaweed lagu magacaabay inaad tahay maaragtay qasnad hayaha treasurer ururkaasna dabcan kulay wuxuu salka ku hayaa maaragtay suxufinimada ama crime reporting waxyaabaha maaragtay godob falka bal organization kaas wax inooga sheeg maxaa loo abaabulay meeqa qof ama members kiina meeqa tihiin saameyntu leeyahay bal tell us waad mahadsan tahay ururka iyagu waxaa la yidhaahdaa the Crime Journalist Association of Kenya waa midowga wariyaasha ku hawlgala ama baara arrimaha dambiyada kala duwan falka dambiyada kala duwan yihiin kuwa waa sida musuqmaasuq oo kale dambiye aad u weyn kuwana waa dambiyada dil iyo xatooyo iyo waqaf nacayb meel ku qorayo dambi sida noqdaanba marka waxaan ka koobanahay ilaa dhowr boqol oo wariye oo dhamaan dalka Kenya oo dhan suxufiyiin maaragtay rogcada ayaa isku yimi oo asaasay ururkan waxaan inta badan aanu ka shaqeynaa sidii badqabka saxafiyiinta arrimaha ka warrama waxa cusub mudan in wariyaashaas ay la kulmaan dhacdooyin fara badan oo qaarkood iyaga xusuus ku reebta iska dadka daawanaya inta badan dadku waxa ay daawdaan oo waxyaabo la soo tafatiray oo laga soo baaraandegay marka dadkii ka baaraandegay oo arkayay muuqaalkii saxda ahaa dhimashadii ahayd hadii nooc noqotaba marka badqabkooda iyo sidii maaragtay loo wacyigelin lahaa loo taageeri lahaa maadaama fursadaas aysan inta badan ka helaynin shirkadaha warbaahinada ay la shaqeynayaan marka fursadaas ayaanu saarnaa waxaan kaloona aanu qabnaa shabakad warar oo la yiraahdo Shahidi News oo iyana ururku uu leeyahay kaasoo lagu qoro wararka ku saabsan arrimaha dhacdooyinka lidiga amniga kuwa gobolka oo dhan marka aan ku weydiiyo ururkan hadda aad maaragtay qasnadahayaa u tahay suxufiyiinta Soomaaliyeed meeqad ku tihiin dhowr suxufi baan ku nahay ilaa saddex wariye waan ku qiyaasaya intaan hadda maaragtay ururka ku jiraan inta badan wariyaasha waxay badan yihiin siyaasadda iyo wax ka warrama marka wariyaal ka warrama arrimaha ammaanka iyo security-ga ay yara kooban yihiin marka hase yeeshee weli qabiilkayga layma weydiinin qasnadii iyo dhaqaalahoodii sidaas ay ugu dhiibeen walow aanu xitaa ku yarnahay halkaa inagoo Soomaaliya